Welcome to Nulii Productions. Subscribe for more videos. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij cusub oo gaar ah oo aan uga hadli doono sababaha keena furiinka. Waxaad kala socotaan Nulii Productions, waxaana idinla socodsiin doona aniga ah Nuruddin. Ku soo dhawaada barnaamijka caawa. Sidaynu kor ku soo xusnayba, waxaynu falanqayn doonaa sababaha keena furiinka. Dhawaanahan oo aad u tiro batay furiinka ayaa waxaa la isweydiinayaa su-aasha ah maxaa keena furiinka. Inkasta oo su-aashan uga jawaabayo qof kasta ayaa haddana lagu kala duwan yahay waxa keena furiinka. Marka aad si fiican u eegto nolosha bini'aadamka, waxa ugu muhiimsan ayaa ah guurka. Sidaas daraaddeed ayaa dadka badankiisu u arkaan furiinka in uu yahay guuldarro ku timaada guurka. Haddaba maxaa keena furiinka? Waxaa keena furiinka dhowr qodob, hase yeeshee dadka nolosha wax badan ka soo arkay ayaa qaba inay keenaan qodobadan soo socda: 1. Dhibaato dhaqaale. 2. In la kala fogaado. 3. Dabeecadaha oo lagu kala duwanaado. 4. Balwadda. 5. Dhaqanka oo lagu kala duwanaado. 6. Gogosha oo la isku qancin waayo. 7. Faragelin ku timaada lamaanaha dhan kastaba ha ahaatee. Mowduucan oo dood fara badan dhaliyay, haddana dadka ku nool dunidan aan joogno ayaa wuxuu ku eedeeyaa rag iyo dumar midba midka kale inuu isaga keeno ama xaggiisa ka timaado in la kala tago. Hase yeeshee, furiinka ka dhex dhaca dadka Soomaaliyeed ayaa salka ku haya 3 arrimood oo aad moodo in ay ka dhashaan kala tag aan xal lahayn. 3daas arrimood ayaa waxay kala yihiin dhibaato dhaqaale, balwadda, iyo dhaqanka oo lagu kala duwanaado. Kala tagga ugu badan ayaga ayuu ka yimaadaa, gaar ahaan kala tagga Soomaalida. Furiinka ka dhaca Afrika ayaa sababsada had iyo jeer dhaqaale darro daraaddeed, halka kuwa ka dhaca Ameerika iyo Yurub ay sababsadaan 3da aan kor ku soo sheegnay oo dhan. Tusaale, Soomaalida qurbaha ku nool waxaa kala taggooda sababa markasta dhaqanka oo doorsooma, iyagoo ka taga dhaqankeennii suubanaa. Waxaa kale oo sababsada furiinkooda dhibaato xagga balwadda ka timaada. Ugu dambeyntii, dhegeystow, waxaan maqaalkayga ku soo afmeerayaa marka hore in laga baqo Allah loona laabto, taas oo qoysas badan ka badbaadin karto inuu ku yimaado burbur.